السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها خالقة إن همزة الوصل وحو كمد ياهي ميلها وأذك هنجادة المعنى محل آدي هذا يوديبا المها إسكنا في دتك واوين أي محل هاي يوديبا يعني فهم كيسة سيدا صدرت المركب وحنكو سيريا qaab fudud aad ilmaha ku bari kartay hamzatul wasliga sidoo kale dadka waaweyn u fiirsameeshan hamzatul wasliga waxa loogu talgalay in sukuun lagu akhriyo oo maxaa sukuunka wuxuu rabaa kordhig hoos dhig godaal in laga soo hormariyo hadii la waayin maxaa la sameeynaa hamzatul wasli ayaa loo keensanaya oo hamzatul wasli kordhig ma saaran may hoos dhig ma saaran may godaal ma saaran may he sidee loo akhrina marka aritu hamzatul wasli ina akhrisid waxa la fiiriyaa xarafka saddexaad haduu godaal uu saaran yahay hamzatul wasli waxa leedahay u ayaa leedahay hadii xarafka saddexaad oo kordhig ama hoos dhig uu saaran yahay hamzatul wasli waxa leedahay i ayaa leedahay marka kaliya hamzatul wasli loo akhrinayo sidii a oo kale waxa waaye markuu la socdo hamzatul wasli haduu laam la socdo a ayaa loo akhrinayo waxa leeyahay markaas al ayaa leeyahay mar kale waxa jirto hamzatul wasli aan la akhrinaynin goorma waay markuu dhaxda u galo hamzatul wasliga dhaxda haduu galo lama akhrinayo hamzatul wasliga haduu dhaxda u galo lama akhrinayo marka qaabkaas ayaad ilmaha hamzatul wasli ku faahfaahin kartaa insha Allah hadad ka faa'iideysatay fadlan walaalkay oo sii gudbi si asigan uga faa'iideysto jazakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.